نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة، نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة، نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة. نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة، نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة، نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة، نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة. سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة، خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة، سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة، خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة. فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة، فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة، فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة. نحب الله والجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka Andalus Podcast oo maalin waliba xiliyadan oo kale aad dhegeysataan. Toddobaadkan iyo midkii ka horeeyayba kooxda ridada Soomaaliya iyo maamulada gaala raacyada ah ee ka jira dalka waxay dhigeen xaflado waaweyn oo ay ku sheegayaan mid lagu xusayo maalmaha xorriyadda Soomaaliya. Arrintaas oo Soomaali badan oo wax magarata ahna ay kaga daydeen. intii la socotay xalqadii u dambeysay ee barnaamijkan waxaan toddobaadkii hore falanqaynay sida ay ku timid xornimada ay u dabaaldegayaan Soomaalida iyo dabinadii siyaasadeed ee ku dugnaa, inagoo soo sardinay sooyaal taariikheed oo aad u dheer. maantana barnaamijkan oo xalqo kale ah waxaan insha Allahu tacaala ku falanqayn doonaa isla su'aasha ah Soomaaliya xor ma tahay, maxaase ka jira xorriyad ku sheega ay u dabaaldegayaan maamulada ridada ah sida xukuumadda Villa Soomaaliya. waxaa barnaamijka marti iigu ah nin aad uga fog aragtida aaminsan in wixii dhacay 1960kii ay ahayd xorriyad ama madax bannaani ay heleen dadka Soomaaliyeed, kuwii xilligaas la wareegay talada dalka ilaa kuwa maanta joogana ka aaminsan madalooti iyo midiidin ay tahay in laga dhex saaro ummadda lana meel dhigay oo ku mithaalay awrka dhaliyada xun ee laga dhufaano geela. waa abwaankii yidhi awrkii dhaliya xun geela waa laga dhufaanaaye, ama dhoobadiyo sayladaad gacanta dhiibtaaye, ha yeeshee basaas kula dhashaan cidina dhaadayne. waa abwaan Cabdiwaaxid Cali Gamaadiid. abwaan marka hore soo dhawow, ku soo dhawow barnaamijka Andalus Podcast, ku soo dhawow idaacadda Islaamiga Andalus stuudiyaheeda labaad. waan dhowahay walaal Faysalow. abwaan Soomaaliya xor ma tahay, maxaase ka jira xorriyadan ay u dabaaldegayaan maamulada dalka maanta ka jira sida xukuumadda fadhigeedu yahay Villa Soomaaliya iyo kuwa kale ee ku daaban ee loo yaqaano maamul goboleedyada? jawaab buuxda waa maya. waa gartay. Soomaalidu waa ummad muslina, muslimiinta kale waxay qabaanna la qaba. 1924 bay khilaafadooda al-khilaafa al-islaamiya ayay dhacday. waa gartay. ummadda muslimiinta waayahay ku jiraan ayuunbay Soomaaliduna kula gowracan tahay ay ku gowracan tahay. inta la ogyahay 750 maamul oo dabadhilifa oo gaala raaca bay gaaladu hor dhigtay oo caalamul islaami laga haa muslimiinta haysta. saynu wada garanayna hadda Afghanistan ayaa laga eriyey maamulkii ka jiray dabadhilifka ahaa. inaguna waxaanu rajaynaynaa inaynu ka labaad noqonno insha Allah mujaahidiinta bariga Afrika. taasi waa taa. haddii isha toyga ama waaqaca si ninba u fahmaya aan ku soo dhawaadana waxaynu leenahay haddii xorriyadi dhalatay maxay malaayiinta Soomaaliyeed ee dibadaha ku dactaraysanay qaxoontigii halka xorriyadu ka dhalatay u iman waayeen? waa garta. maxaa meelaha dhigay? waxaynu leenahay haddii xorriyadi dhalatay maxaa 10 maamul goboleed keenay? sidoo kale oo aan waliba iska amar qaadan. haa sidoo kale maxaa khayraadka ummadda maalinba qayb cadowga loogu saxeexaya?
badda saylac waa arkayseen dee wixii ka dhacayay aad iyo aad turkiga oo 95% shidaalka Soomaaliya loo saxeexay waa arkayseen aad iyo aad maxay ciidamada shisheeyo ee madow iyo caddaan bale ay dhulka waxa weeyaan u joogaan Soomaaliya u joogaan maxaa muslimiinta kumanaanka ah ee Hargeysa Garowe Muqdisho Kismaayo Baydhabo gaalada ugu xidhxidhan hadday xorriyad ummadda muslimka ee Soomaaliyeed leedahay ay dhalatay maxay gaaladu jeelasha ugu ciqaabayaan waxaan ogahay weeye weliba taasi oo anigu xogogaal u ahay aad iyo aad waxaan anigu xogogaal u ahay weeye maxaa ummadda waxa weeyaan badqabka iyo caafimaadka loogala dagaalamaya ee waxa weeyaan cudurrada loogu faafinaya ee looga dhigaya ummad cudur la noola sida dawladaha gaalada ee nala deriskaa anigoo Hargeysa jooga ayaan 2 shay ka dhageystay mid waxa sameeyay niman dhakhaatiir oo reer Muqdisho waxay yiraahdeen 2 bilood gudahood 11,000 ruux ba ay AIDS laga helay Hargeysa dhacdo ka dhacday nin dhalinyaro ah oo Xamse la yiraahdo ay sheekeeyay wuxuu yiri nin dhakhtarka weyne Hargeysa ka shaqeeya ayay yiri inaan yaroo taksiila aba dhiig beelay hadiye goorle qofka marka dhiigga loo shubayo dadka isku shaqadayiin baa loo yeedhaa 15 inan oo taksiilayaala oo loogu yeedhay 15 ba AIDS baa laga helay cajiib aniga iyo dhakhtarka ninka Xamsa noo dhaxeeyay Xamsa nafkiisa ka qaaday sanad caali ah ha bal sawir sida dadka ummadda badqabka loogala dagaalamayo nin taksiilayaasha halkay ugu timid marka aafada kaligood dee waxa weeyaan waxbay gurayaan intaa waxaa laga yaabaa dee fisqi baa u dhuumanaya nin xabashi oo muslina wuxuu la sheekaystay naag xabashiyada oo naagaa gaagaban ee bunka Hargeysa ku sameeya waa naagaa muddo dhulka in lagu soo fahsiiyey waa gart 100 mitirba 10 baa fadhiya cajiib marka ninka xabashiga waa muslim laakiin iyadu kristan bay moodaysaa wuxuu ku yiri ma bunkan ayaad ka soo saartaan masaariifteena oo dakhliga ugu weyn ayaa soo gala ha maya bay tiri wasaaradda arrimaha dibadda ayaa nasiisa annaga biilkayaga laakiin halkan AIDS fidin baanu joognaa waa gartay oo dawladda ee wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ay u diiwaan gashan yihiin ha sidee u fidisaan buu yiri iyo weydiiyay naagtii waxay tiri 2 qaab baa u badan qaab waa jirkayaga ayaan ku aafaynaa qaabna dhuunigaan ka iibinaynaa dhiig u raacinaa macnii waxay geliyeen maxaa ummadda badqabka loogala dagaalamaya oo cid wax ka qabanaysanayso haddii xorriyad heshay maxaa ummadda Soomaaliyeed maxaa wax looga qaban waayay maxaa tarangaabinta loogu samaynaya tarangaabinta waad ogtahay dee dhakhaatiir baa u furan si taranka ummadda loo gaabiyo hay'adaha qaabilsan maxaa luwaadka loogu faafinaya maxaa kiristaamayntu ay uga dhex socotaa waxaynu ka geyoonaynaa maaha haddii aan su'aasha jawaabteeda ku soo dhowaado xorriyadi ma dhalan xorriyad beenaad ayay ahayd waa gartay rag indheergaradkii ummadduna uu ka gebiyey Guhad Cabdigahiir baa ka mid ahaa habeenkii la calan walaynayay Hargeysa 1960kii ayuu la yaabanaa isagu wuxuu fahansanaa gaalkii inuu gaal kale ku wareejiyey xilkii ummadda la midaba kana halis badan isagii wuxuu yidhi good iyo abees bay isbedelay garanna maysan goraygii ilmihii ka tegey guumiska ahaa Ingiriis wuxuu ku xubsiibtay buu niman Soomaaliya goraygii ilmihii ka tegey guumiska ahaa u dhogor bedeshay ha gocondhooyin baa aasan iyo mici gabaaray karaalkaama guud halkan uu guud madow yahay buu waxaa ka mid ahaa raggii ka hadlay xaajadan afqalooc wuxuu yidhi mabda'ii nasaarada madayn muhashadiisii buu siyaasigu ilaa hadda daba socdaa mabda'ii nasaarada daba nashleynaya ha madayn muhashadiisii malcuunkaynu erina ahaa macallinkoodii
halkii karal ka miisaayey ayay midhsiyaadsheen buuri imaan laantii bay nabarra ku dareen ziyaadatun fil kufri hayo ha iyagaa la yimidba nacam qaasin ayaa ka hadlayey axmed ismaaciil diriya qaasin wuxuu yidhi isma doorin gaalkan diriya daarta kii galay dusha midabka soomaali baa dugulka mooda misna laguma dirsada qalbigu waa dirkii karal waa gartay abwaan waxaad tiri soomaaliya ma xuruubin xorna ma ahan abwaanadii hore ee soomaaliyeed 60kii waxay ka yiraahdeen madax banaanidii soomaaliya xilligaas la siina qayb ka mid ah waad soo guurisay waayahay haddii uusan xornimo uusan ka tagin muxuu ka tagay raadadka uu ka tagay ee ugu waaweyn maxaa ka mid ah walaal waxaa ka mid ah faysalow raadadka waaweyn ee uu ka tegey dastuurkii uu wax ku xukumayey ee gaalnimada ahaa ayaa ugu weyn waxyaabuhu ka tegey waa mabdi'iisii haa waa dastuurkii uu wax ku xukumayey haween gumaysiyadii nin waliba wixiisii ayuu waddankeenna kaga tegey aad iyo aad nin la odhan jiray jaamac gacma dheere aad iyo aad nin gabayaaya buu ahaayo dheer garada xilliguu joogay raggii xilliyadaa noolaa buu ahaa xorriyadda kana dambeeyey xilli ka dambaysana wuu noolaa jaamac wuxuu arkay in dastuurkii gaalada uun sidiisii loo soo minguuriyey isagii un in la soomaaliyeeyey garsoorkeennina la dhigay haa oo lagu qoray qodobka 5 ama qodobka 3 wixii diinta ka hor imanayaa wuu reeban yahay aad iyo aad intaana caamadaa lagu siraa waxaad arkaysaa wadaad iska irmaaneeya ahoo kale waxay qodobka 5 ka hor imanaya ama qodobka 3 wuu reeban yahay ereyga irmaaneeya aada u isticmaashaaya maxaa kala jeedaa waa ninka xile irmaanayskaadee inuu dumarka ka ilma dhala maahaane aan waxa weeyaan macno kale lahayn faa'iido kale aan lahayn waa kartay ku soco marka arrintan ninka ka ildheer buu ahaa ninkani waa waxay arki waayeen waxa weeye jaamac gacma dheere wuxuu yidhi rabbi bayna abuurtay rububiyadu ka bilaabay rabbi bayna abuurtay ragna laynagu sheeg deexniyuu bilaash maaha ragna laynagu sheeg yaan risaaladda weyn iyo rugni diina la iibsan cajiib dastuurkan rafacayey waxaan gaalka ula dagaalamay buu yidhi inaan dastuurkiisa meesha ka qaado dastuurkan rafacayey iyo kii horaa laga reeday kan imika soomaaliga ku qoran kii horaa laga akhriyay buu yidhi iyo kii horaa laga reedayoo raadba raad lagu beegayoo ra'diyoo la ballaarshay baa laygu raawisayaa buu yidhi ummadda waxa weeyaan lagu aftiraya gudin raawisa lagaga dhigay oo fadhiida ummad fadhiida wax qabsan karin marka muxuu yidhi ra'diyoo la ballaarshay dastuurka on lii qorqorxay ra'diyoo la ballaarshay baa laygu raawisayaa buu yidhi aad iyo aad kaasi waa raadka ugu weynu ka tegey mas'alada marka xaakimiyada xilligii xornimada la qaadana waa la isku haystay waaye aad iyo aad soo ummadda ummad muslina maaha aad iyo aad ummadda ummad muslina soo maaha warka waa laga afbadiyey mooye ma aamusin waa sidaa waxaa ka mid a raadadka waa inuu ka tegey raggii uu samaystay ayaa ka mid ah dee waa kii waxa weeyaan ninkii la odhan jiray waa kii hadraawi ka hadlayee lahaa doofaarrada aan gudnayn diinlaa waa gaalku dhalay xaqay garbaduubayaan buuri waxa loo samaystay waa inay xaqa garbaduubu xidhaan doofaarrada aan gudnayn diinlaa waa gaalku dhalay xaqay garbaduubayaan guhaad cabdigahiir oo kale uu ka hadlay wuxuu yidhi kana aragte kii horena waa wada ogeydeene miyaan madax ilaahay taqaan nooba imanayni buuri cajiib wala yaabay haa waxaan imaanka laga qaaday United Nationka beesha caalamka igad union AEU waxaan gaalun la daba dhigay maxay idin hor dhigay buu leeyahay miyaan madax ilaahay taqaan nooba imanaynin waxa ka mid ah waxyaabuhu ka tegey manhajkoodii waxbarasho ayaa ka mid ah waana halka ummadda laga aafeeyo isla ninkaa hadraawi allaha u naxariistee ayaa wuxuu yidhi iskuulladu waa dayeyn damiinnimada ayay dhigaan digtoor nacabay dhalaan somaad arag mid la yidhi diinta ma iska xukana yidhi I will say no waxaasoo kale soo saara waa manhajkoodii soo saara waa manhajkaasaa soo saara manhajka kaasi ka soo baxo
iyo xasan gurguurte oo yidhi yuhuudda qaran baa noo aqoonsanna inay isdifaacdaan xaq bay u leedahay falastiinna ku jiibsaday raggaasaa ka soo baxa oo manhajkii raggaasi ka soo baxaan markaa haddana wuxuu yidhi iskuulladu waa dayeyn damiinnimada ayay dhigaan digtoorna cabay dhalaan duruustu falkay tiqiin dantay uma soo lugo'in buu yidhi waxaad arkaysaa meel miyiya qol laga dhisay oo suuliyarna loo sameeyey oo hay'ad magaceed lagu qoray marka dantay uma soo lugo'in cajiib ujeedday leeyihiin nacam waa inaan fahnaa marka waa in ummadda lagu baraarujiyaa inaan laskala soo ordin waa waxbay noo wadaan waa sidaa raadadka inay ka tegeen muransohodimeedkaa ka mid ah dalalka aynu deriska nahay nala ologa ah ee macatablayda ah ayaa dhulkeennii qaybo badan la siiyey dadkeennii dhulkaa degganaana cadowgaa la hoosgeeyey waa muransohodimeed iyagaan u sabab ahaa nacam iyaga u sabab ahaa cabdi iidaan faaraxoo arrintaa ka xun in arrintaa dhirif laga muujiyana ka hadlaya wuxuu yidhi nin walaalkii saymaa ku hadhay seexan kari waa nin walaalkii saymaa ku hadhay seexan kari waa sangaa ururshe geelaba hadduu saacad weerare sandullan ku raacdaynayaa saa dambana qaar waxaa ka mid ahaa xaajiyaada nafqallooc dalku waa ogayey khaayinkii ciidda ibsaday NFD markii in ahayd baan filay NFD dalku waa ogayey khaayinkii ciidda ibsaday buu waxaa ka mid ahaa ninkii la odhan jiray tima cadde dhoobada hawaas baa nin kale naga dhaxaynayn dhulka inaynu wada sheegannaa wayla dhalanteed raggii dhiiranaan jiray hubkii galabta loo dhibiye dhanaansada dadjida maalin dhow dhiil kalaa quban lisaga hari maayo nacam raadadka waaweynay ka tageen waxaa ka mid ah madax dhaqameedka qaybo ka mida iyagaa si toosa u samaystay soomaalidu madax dhaqameed kooban bay lahayd suldaan garaad imaam malaaq ugaas nimankaa waaweyn ee madax dhaqameedkaa waaweyn bay lahayd oo nukhba ah ha nacam oo ninba ninku ka sharafta badan yahay la xulo oo hunguri iyo caadaqaatanimo ka fog rag foolaadaba macani ayaa loo xulayay markii gumaystihii yimi wuxuu dareemay raggan dee in taladu ku urursan tahay rag badan oo ka mid ah ayaa gaalkii ka hor yimi suldaan nuur amaa ninkii la odhan jiray daraawiish buu wax ka sameeyey suldaan cabdilaahi suldaan diriye oo kale hargeysuu ku xidhay kii ninkii lahaa dhalashada iyo diintaba naftaa lagu dhoweeya labaduba ninkii dhigla wayna dhaqataan cabdilaahi waxaniyaa dhibaatoodu waa dhaawax kugu yaalle dhadhamada waxay gala roon dhaadashada guuda cabdilaahi waxaad dhaafsateen ima dhaadhicin waa raggii gaalka ka hor yimi waa madax dhaqameed ay ahayn nacam raggii salaadiintii waaweyneed ay ahaayeen markuu arkay gaalkii ninkan taladu ku urursan tahay gaalku ma ogola meel talada ku urursantay talada Soomaaliyeed meel ku urursantay ma ogola fawdu isagu doonaya inuu dadka fawdo geliya ayuu ka faa'iideysanaya saasana ugu badisa marka wuxuu samaystay nimanka la yiraahdo cuqaashu niman isaga u shaqeeyay ahaayeen mushahari buu ka dhigay kaar buu siiyey sidan imay u shaxun iyo koofiyada dheer u sitaan ayay markaan xafiisyadooda u taagnaayeen ninkii Faarax Nuur loo oran jiray ee gabyaaga ahaa ayaa nimanka ka yaabay wuxuu yiri odayadiinan loo yeedhayo ee la anfacsiinaya haddaan niman islaamiyad tihiin aadan fariciisa ooydaan ilaahay ka goyn hayno oodina asxaabi bayna yidhi gaal ha aamini hadduu awrka dooxadan ku furay eel kala xigee inaga daaya yeynaan ku dhicin baha lafkiisii nin kale oo isna ka yaabay baa yidhi walla caqiladu tahay ayaan camal kala u dhaama waa garta way shaqo xun yihiin buu leeyahay waa garta haa waayo ingiriisku ama talyaaniga ama xabashi iyo bulshada iyaga isku xidhayay isku xidhaa rasmigaa bay noqdeen xeerarkii gaaladana waxbay ku xukumaan wuxuun baad arkaysaa reer hebel waxaa noo xeera maxaa kuu xeera reer hebel imaanlaan baa idiin xeera iyo anshaxumo diintu maxay qabtaa odhan maayo aad iyo aad waxay yidhahdaan qolyaha ka sheekeeya ingiriisku ma lahaa xeer qoran wuxuu ku odhanaya 1995 dhacdadaasaa dhacday sidaasaa loo xalliyey cuqaashu markay fadhiistaan waxay dhahaan arrintani ma ugubaa mise waa curad
labaduba iyaga iyo ingiriiskuba xeerarkooda maskaxday ku sitaan waan isku egyihiin ha waa la kala dhaxlaa ma dhacdo cusub mise dhacdo hore u dhacday markay doonayaan arrin inay maareeyaan intaas wax lagu xaliyaa saas wax lagu maareynaya marka waa arrin hore haddii leera see la yeelay maxaa noo xeer ahaa maxaa noo xeer ahaa weeye waa garta halkaa markay marayso nimankii cuqaasha ahaa ee gaalku samaystay iyo salaadiintii hore ee dadka lagala hoos baxay iyo salaadiin dambe oo babahoo dabadhiilfyadu sameeyeen intay tallaabada hore ingiriiska iyo gumaysyada ka faa'iidaysteen saddexdii qolo ayaa iminka tiifiyada iska caayaya ood mooddaa dad xarun caafimaad laga soo furay habeen oo dhan haddaanu nahay reer hebel ma laha maxaa laguu abuuray diintii waxa weeyaan meeday xaggeed u socotaa xaggeed ka socotaa marka waxbayaan ku dheeraanine waxa weeyaan raadadkay ka tegeen ayaynoo joogtay taasaa ka mid ah inay madaxa dhaqameedka qayba samaysteen intii kalena maanta bi'iyeen waa gartay haddii marka dadkii Soomaaliyeed maanta haddii loo cadeeyay inaanan xorriyad dhalan maxay ugu dhiidhin la'yihiin oo weli gumaystuhu uu u haystaa oo dadka garaadkooda uu u kobci la'yahay walaal sidaad sheegtay dadka in badan baa lala soo hadlayey oo loo sheegay inaanay xorriyada dhalan oo lagu celceliyey nimanka haystaa ilaa 1960 inay dabadhilifiyeen in waddankooda cadow ku soo duulay mar walba qayb baa baraarugaysay dadka qaybna way huruddaa waxaynu leenahay bal maxaa sababaya inay dadku wada baraarugi waayaan innagoon anshaxumada u sidiqaynin haddana waxaynu leenahay gumaysigu waa wax cidde adag dadka garaadka iyo garashada iyo hanka iyo himiladaba uu ka dila haddaad eegto suuratulbaqara in badan ilahay wuxuu kaga warramuu ku soo celceliyey gumaysigii fircoon siduu reer banu israa'iil u bahdilay u saldhigtay ugu saldhigtay nebi muuse calayhi salaam markuu is yidhi xoree dhibtii kala kulantay iyo axdartii ka qabsatay waad ogeyd halkaan uga golleeye aan gaadhee gaar ahaan markuu nebi muuse is yidhi colka dhur ee uu reer banu israa'iil dagaalka ku hogagelinayey inay nimankii camaaliqada ahaayee baytulmaqdes iyo dhulkaa barakaysan qabsaday inay ku duulaan markuu ku hogagelinayey maxay ku yidhaahdeen bal labada aayadood ee suuratulmaa'ida 22 aayadda 22 iyo aayadda 24 aynu eegno qaaluu yaa muusa inna fiihaa qawman jabbaariina wa innaa lan nadkhulahaa xataa yakhrujuu minhaa waxay idhahaan muusow meeshanaad noo dirayso eed noo dagaal gelinayso duul adag baa jooga dagaalkaagu waa jariska xornimo bay yidhahdeen waa sida maanta layna leeyahay beeshii caalamkaoo dhan bay ay ka hortegayaan oo aakay bay la garrif leeyiin soomaad maqal marka waa caqligii reer banu israa'iil waxay raaciyeen dhaabad ah wa innaa lan nadkhulahaa xataa yakhrujuu minhaa geli mayno ilaa ay nimankaasi meeshaa ka baxaan eeg hadda maqaayiis alxayaa halbeeggii nolosha xataa ka lumay sida maanta wadaaddo badan ay u qaateen iyadoo dhulka cadow ku soo duulay inay masaajidka ku khudbadeeyaanay kitaab ku dhigaanoo say khudbaddaa u wadaan iyo dacwaddaasaa gaalku iska tegaya waxa weeye alkhilaafa alislaamiya oo maca kuraasideedii iyo nalkeedii iyo xafiisyadeedii wadataana cirkay ka soo degaysaa iyadaa iska imanaysa u fiirso waxay ku leeyihiin jeeray iskaga baxaan geli mayna meesha fa in yakhrujuu minhaa fa innaa daakhiluun hadday ka baxaan markaasaanu gelaynaa u fiirsaad caqliyadda niyad ahaan u jabaan nolosha halbeeggii nolosha eeg nolosha dee kifaax baa loogu talagalay sunnaheedu waa kifaax sunna tadaafuc waa soomaalida waxay tahay saddex alla loolama tago dhisan maayee dhalisii xoogsan maayee xoolaysii camal fali maayahay cadaabin cajiib saddexaas alla loolama tago weliba way sii adkeeyeen aayadda 24aad markaad tagto qaaluu yaa muusa waxay dhahaan muusow
inna lan nadkhulaha abadan maadaamu fiiha weligayaanaan gelin intii nimankaasi meeshaad joogaan fadhab anta wa rabbuka faqaatila adigii rabbigaa dagaal taga anagu halkaan idin innaha hunaa qaaciduun aad iyo aad halkanaanu sii fadhiyaynaa kuwaasi waxay yidhaahdeen dagaal taga adiga rabbigaa wadaadada maanta jooga in badanoo ka mid waxay yidhahdeen hala wada fadhiyo idinka taa bixin reer bani israa'iil baa dhaamay waad fahantay soo maaha kuwan adigii rabbigaa baxa mu soo idhaheen halka kuwan macal idinka fariista maca idinka fariista cajiib marka waxaan u soo qaatay aayaadkaa oon u soo maragashaday ilaahay wuxuuna barayaa gumaysigu inuu ciddi adag yahay ninka dadka gumaysiga doonaya inuu ka saarana waa inuu adkaysto hawl badan baa u taalla dad sidaa u jaanjaamay ayaa la doonayaa in la xoreeyo waad fahantay soo maa aad iyo aad bal waxaynu eegaynaa gabayaagii soomaalida tusaale ahaan ingiriis iyo waxaa isdilayay sayid maxamed cabdilla xasan oo daraawish burtuur u ahaa mujaahidiintii daraawishe gabayaa badan oo soomaaliyeed ayaa waxaa arlada ka socda aan fahansanayn nin ingiriis jebiyey ayay libtiisa sheeganayaan cajiib iyagoo reerahooda ku ammaanaya soo qaada gabayga xasan tarabi wadaadkii cadeed iyo cadeed laga cabsoonaya isagoo cartiisii qaba oon cidina taataaban qabiil kale cayaar uma dhiceen culus hashiisa iyo guutada camuudda markay caasha loo geliyey gabagabada ceerada markaad cadar xagaa mooday carro wiilasheedii markaa caynab ku eryaayay caamir hooyadii iyo markaa cala sooyeysay waa kii caruusa ugu galay caydhi berigee nimankii calqadihii ka riday macid kalaad mudiso cuudda habaryoonsi cida gala maaha haddaba ninkii ingiriis galcad waxaad ogtoo huba ku riday u fiirso soo qaada salaan carabe wuxuu yidhi xoolihii daraawishada maalintaa la dhacay ee gaaladii murtadiintii wada socday ay dhaceen ayuu salaanno ku faanaya hadhuur daata idinkaa ka qaday ha qablihiisiiye wax hortiina lagu maalayaa kii hagoogane waxaa ka mid a cali dhuux waa lagu digtaa dowladdu guu darraan jiray balday ay wadaadkii wakaa sii dabayshadae balday ay wadaadkii wakaa sii dabayshaday buu waxaa ka mid ahaa kii lahaa daarood ismaaciil ninkii doonayou dhimay didibtii jid baalay lafii daadsan yihiin weli bal hadda u fiirso meesha dhulkii baa saa la isugu haystaa gaal iyo muslimba ayaa isku haya ragna sidan uu gabyaya kuwan marka way kala garan la'yiin way kala garan la'yiin gumaysigu dadka wuu naanaabiyaa ninka la yidhaahdo sayid maxamed cabdilla xasan ayaa wuxuu ilaahay weydiisanayaa uu ka baryayaa inuu gaalka ka libsiiyo isagoo dadkana dhagaha ugu ridaya inay gaala isdilayaan oo waxaa ishaya inay gaal iyo muslim inay yihiin wuxuu yidhi eebow gamaaniye waxaan ginacas dhiibaayey eebow garow kagama helin goolashaan waday dadkii ku wadaa eebow waxay naga gogtaan waa galuuf olol go'na lagama qaadina dulmay nagu galayaan eebow waxay nagu gabreen diinta soo gala gabaad kale hadday ii helaan waan gam ilaha eebow nin goba baan ahay guni rifaysa eebow anaa kaga gar leh guusha hayseejin sayid maxamed mar kaluu ku noqday wuxuu tilmaamayaa gumaysiga ninka weyn iyo ninka yar kuu ku ciddi kulul yahay ninka weyn ayuu sheegay inuu ku ciddi kulul yahay nin weynkii gumaysiga soo gaadhay ilaa ummadda ka dhammaado anugu inta wanaagsan ka hadli maayo nin weynkii gumaysiga soo gaadhay ilaa ummadda ka dhammaado agagas ku dhammaan maayo iyo dhusle reer banu israa'iil hadda ka sheekeynayso kale waxaa la yidhahdaa 40 sano oo tiha ayaa lagu riday tihi baa iyo wareer baa la geliyay sijiilkii hore meesha uga baxo nacam waa sidaa waa taftaas waaba sidaaba weeye sayid maxamed markaa wuxuu yidhi tol dulloobay oday dooralaa loogu dawgalay oday doora leh ayaa loogu dawgalay waxa weeye doorada digaaggii mahaa tii koonfurta u qaaday oo wasakh gale wey oday wasakha weeye tol dulloobay oday dooro leh ayaa loogu dawgalay marun bay duqaydii xumayd danaba dhaafaane baldayay rag cadho duuban baa dib u guhaadoonna buu oo wuxuu leeyahay facan gumaysi la korka ah inuu xiroobo rajo ma leh abadan rajo kama qabo facan nadiifa baa ka soo daba kici buu leeyahay marka jiilkaasaa rajo laga qabaa nacam xaaji aadan afqallooc intaan xaaji aadan u gudbin hadda haddii annaga waxaana lagu haystaa waa dhalinyaro sidee ku suurtagali kartaa dib suuragalba matay innagu ninkii wanaagsan ma haysanno
kii wanaagsan ma haysano laakiin ninka xun baynu haysano oo gumaysiga qabatay ninka gumaysiga qabatay nin xunka waa sida u badan tahay ayaynu haysanaa xaaji aadan igal marka xaaji aadan afqaloo isna wuxuu la yaaban yahay sayid maxamed iyo daraawiish ayaa la arkaya gaalana waa la arkaya haddana waxa weeyaan sayid maxamed baa la inkiraya gaalkii baa la iska ag jooga ama se qayb raacsantaybo cudud iyo ciidanba lagu beeriyey taasoo aad uga xumaaday mashadkii ayuu la yaabay wuxuu isweydiinaya dadkan garaadkoodu waxa weeyaan mafoosta gunla'baa waxaanu xogee loo sheegayo maxay u qaadan la'yi maxay wuxuu arki layin waaya u qiimayn la'yi wuxuu yidhi sayid maxamed baa la inkiray oo gaal la aaminay islaamnimada weliginba waa ka aradnaydeen buu soomaalida xilligaas oo sayidka garabkiisa ka baxdo haystaa nacam ayuu haystaa ninkii la odhan jiray sheekh bashiir raxmatullaahi calayhi ayaa isna markii uu jihaadayey ayuu dadka garaadkoodii dadkii la noolaa ayuu garaadkoodii saluugay waxaanuu gabayu tiriyey ugu sheegayaa inay xaggooda ka jiifto sidoo kale hor alleh ayuu geynaya wuxuu leeya waa inuu habeen aakhiro iyo hor ilaahay muxuu yidhi bal noo maray wuxuu yidhi waa ti farsamadii wacnayd waa lilay biday farsamadii wacnayd waa jihaadka markaas argagixisaati baa lagu yidhi waa ti farsamadii wacnayd waa lilay biday wagashta iyo seertu waa wala cadaabeed buu la nagnaglaynaysaa gaalka loo hoos rooraya cadaab baa lagu doonayaa buu wagashta iyo seertu waa wala cadaabeed wadaacadu xaggiinay ka timi wahabka shaydaan haddaa gaalka nala waabisaan wari ma joogteen wagash inaad tay dadiyow kaa wacaal helay bal ha laga warsigay eebbaheen wayna weheshaaye markaa raggaasi ilaahna wada jeeduu yidhi raggaasi sheekh bashiirna kaasuu ahaa nacam waa garta raggaasi marka waxay arkayeen dadka garaadkoodu in badanoo ka mid ah inay makorayaal yihiin oysan miisaami karin waxa is haysta nacam haddaynu maanta toygan aynu nool lahay aynuu soo degno nin wadaada ayaa adiga ku imanaya tusaale ahaan wuxuu doonayaa inuu jihaadka kaa waaniye iyo howlaha aad ku jirto halkanay ka booday halkanay ka dhacday dagaalkani makaad moodaysa ma aha yaan lagu qaldin adna intaa isaga aad qiimaynaysaa maskaxdiisaad bardaaminaysaa la murmi maysid soomaalida waxaa taa lama murantay masawde waa isku agdhacaysaan laakiin si kalead adna ayaad ula fayka wareegaysaa oo si kalead wax ugu sheegaysaa qofka waa la fasaxaa fursada la siiyaa fursad baa la siiyaa lama murantay masawde haddii kale waa isku agdhacaysaa markuu howlihiisii dhammaystaad oranaysaa sheekh waxaan ku weydiiyey alkhilaafa alislaamiya dowladdii weyneed ee muslimiinta dhexda u ahayd ee nebi maxamed ka soo bilaabmaysay afartii khulafadii lagu xigsiinayey cumar ibnu cabdilcasiis lagu xigsiinayey ilaa dowladihii islaamka soo maray khilaafada ugu dambaysa cusmaaniyiinta umawiyiintii cabaasiyiintii cusmaaniyiintii kaale dowladda weyne sooyaalka dheer lehee aynu lahayn miyay dhacday mise way taagantay wuxuu ku odhanaya way dhacday oo yaa riday gaalaa riday oo maxay sababsatay islaamnimadeeda ayuu ka odhanayaa intaas waa kugu waafaqsan yahay waa kugu waafaqsan yahay bal hadda waxaa soo socda dhegeysa oo haddaa 750 ee muslimiinta hor fadhiya yaa sameeyey wuxuu ka odhanayaa gaalaa samaysay oo iyaga gaalada ayaa nimankan haystana maamulada u dhibatay oo way ku ilaaliyaan dee aan la dagaalanoon iska erino khaariji baata yaa ma dowladahan aad ugu tidi gaaladaa dhisataan khaariji ku noqda waa gartay sodii ugu yidhi tii hore islaamnimadeedaa loo dumay tannama islaamnimadeedaa loo dhisay markaa kuwanama islaamnimadoodaa loo dhisay waa gartay waxa isqabanayn bal hadday isu gee wadaadow waxaa kalood ka warrantaa waxaad igu tidhi dowladahan gaaladaa ilaashadoo samaystay adna waad ilaalinaysaa haddaad wadaad xumihii tahay dhufsanayaraha idinka dhexeeyaa waa maxay dowladdanaa wada ilaalinaysaane dhufsanayaraha idinka dhexeeyaa waa maxay waxaa shuruga ku tiin noo sheeg waa dadka dee kuwii waxlabidaya weliba waa culimadii ayaa sidaa u fikiraya waxaad u timaadaa tusaale ahaan bulshada iyo siyaasiga u kaalay 1955 ayaa nin siyaasi tusaaleahaan maamul qabsanaya wuu fashilmaya intuu xisbigii uu ku fashilmay ka taga unbuu isla laftiisii xisbi kala furanaya isla laftiisii ayaa xisbi kala furanaya soo odhanaya isbeddel baynu u baahannay waa gartay
waa ninka in la bedel u bal hadda baahan dadkan inay sixran yihiin ayaan u malaynayaa isla isagii baa isbeddel baynu u baahannay xaggii bay ugu tegayaanay ku dooranayaan xisbigaa ayuu ku fashilmaya haddana dhan kale uga wareegaya halkii haddana u wareegay baa lagu dooranaya iminka xasan gurgurte oo diintii ku tuntay oo waxa weeye yuhuud taageeray oo burundiis u sujuuday oo xabaalaha cashuuray oo diintii gaalada wax ku xukumaya ayaa wuxuu isuu fashilkiisa u galgashay ku leeyahay xisbiga cadaaladda iyo wada jirkaan samaystay hadda ninku waa xasan waa gartay warba adigu iftiladan eeg dadkan aan korayn ma garatay marka taana intaasaan kaga baxaya aad iyo aad maanta iyo shalayba waxaa taagan dabadhilif oo gumaystaha mar walba uu ku adeegto midkii shalay iyo midka maanta uu gumaystaha adeegsanayo maxay isaga egyihiin waxay isaga egyihiin diin la dirarka hanyaraanta boobka hantida guud dhaqan xumada iyo waxa weeyaan fuxshiga iyo geerashaynta waxtar la'aanta iyo ballanqaadka beenta ah in lagu qatalmo macnii in lagu sirmo dawarsiga shisheeyaa haddaan qodob isu dul taago oo tusaalooyin noo keentid suugaanta soo maragashanno inay niman diin la dirirayeen hadraawi soo qaado wuxuu yidhi waatan horena u taabtay doofaarrada aan gudnayn diin laawaha gaalku dhalay xaqay garbaduubayaan buu waxaa ka mid a waxyaabahay ka siman yihiin hanyaraanta tima cadde ayaa la yaabay ninkii gobtahay tima cadde wuxuu yidhi mabda'oodu nimanku ahaa moodharka iyo daarta nimankii muggooduba ahaa maalin la casuuma buu ingiriiska cashe sharafna loogu sameeyun bay koodhanayaan dee udahaagii baad ka soo qaadday ingiriiska maxaad ka keenta gabaygii madalooti inkii badda habashada u seexay kula hadlayay muuse ku weerartay ayaan ku daray kuwa madaxda lagu sheegayaa maanta waa halis midi daabka cadow haysto oo miridhay weeyaan murtad aan wuxuu gaalku raba maya ka keenin hadda mayaba male ereyga laabowguma jirta qaamuuska murtad aan wuxuu gaalku rabo maya ka keenaynin oo malyan jeer ka sii liitabaa mooda lahaya mudane nimanka hanyaraantoodu aad bay iga wareerisay waxaa ka mid a waxyaabaha isaga egiin boobka hantida guud xaajiyadan afqalooc ayaa wuxuu ka hadlay wuxuu tallaabada mid gaalkii shabaha tegay ma liibaane adigoo wuxuun tabanayo tegay halku joogay xafiiskiisi baad ugu tagtay markuu sida libax raqibo taal qoorta kor u taaga buu yidhi markay muslimiinta isu tuxumbulinayaan dad baad mooddaa afka kor u taagayaan haa gaalada markuu la kulmayana sidaasuu qoorta u hogaaminayaa dee waxa weeye nin ilaahaysii la kulmay waad fahantay markuu sida libax raqibo taal qoorta kor u taago oo tayga luquntiisa sudan taabta faraqiis oo inuu adduun badan tabcado taa qura u jeeda buu taa qura u jeeda wuxuu meesha u joogaa maxay adduunyo tacab haa iyana waa tabaala waqtiga taynu aragnaa buu isla gabaygaa mar kaluu ku noqday 200 walba saa nimay maalidii tahay walba saa tiradii loo dhiibay oo 10 baloor jeexday oo tumanayoo keefa oo biilka gini tuurayo tolaya nayloonka oon tacabka baadiya lahayn tuludi waa maadhe meelkeenaan wax ka soo gelin iyana waa tabaala waqtiga taynu aragna waa nin siyaasiya maamulka 6 bilood ka hor buu tusaale ahaan galay 6 fooq buu dhistay halkay dadku hayaay ka odhan laayeen ayaa la leeyahay waa nin dadka wax la boobaya waa nin dadka wax la qaybsaday dadku wax la qaybsanaya bal u fiirso waa lagu bogaadinayaa bulshadu nin weliba hantidiisa gaarkaa wuu tashanaya wuu xafidanaya laakiin ta guud boob baa loogu talinaya boob nin walba wuxuu ka arko ka dirsanaya arrin dadka wax la boobi kara in hebel baa dadka wax la boobi kara ka u xunaadee hadda u fiirsa walaalo xadarta taagan waxaa ka mid a dhaqan xumada iyo fuxshiga ayaa ka mid a waxay isaga eegiin ninkii tilmaamayay wuxuu yidhi wuxuu ribada xoogay faraha kaga xantaystaaba buu ninka siyaasigii markuu meesha galo islaamnimadu buu xusuusanayaa ayaamo hore uu didsan yahay hadhow buu xashmaa buuxsadaa xaydhna bararaa buu xusbadda u horraysana waxaa la cayaar tiroo dhaylaan ku jimicsaday doon odhanaya nimanka fataaliinta intuu arlada u kala diro raggii naga
isku soo shaqeeya fataal anaga waxaan u naqaanaa ninka ku israafa xoolaha ku israafa waqooyigana waxaa looga yaqaanaa ninka raggiya naaga soo shaqeeya fataal baa la yidhaa tii khayr isugu shukaamiye maaha anshaxuma isugu soo shaqaynaya gabaygaa hore xaajaadana waynu ku soo darray tumanayo keefa buu yidhi ereyga iyo isticmaala dee waxa weeyaan maanta waad arkaysaa gaalada dhulka ku soo duushay ayay caarkeen iyo hablaha Soomaaliyeed ee muslimka u geeyaan waxaa ka mid ah waxyaabaha ay ka siman yihiin in lagu qatalmo macni in lagu sirmo ninka murtadkii diinta badh ama dabadhilifkii diinta badh buu muujisanayaa badhna wuu diiday xuruubu ridda markay dhacday markii nebigu geeriyooday salawaatu rabbi wasalaamu calayhi abubakar waa kii waxa weeyaan murtadiinta u dhiil qaaday in la dagaalamo cumar baa yidhi madda tawxiidsanayo laa ilaaha illa allah leh abubakarow waan laynayaa buu yidhi salaadiyo sakada hadday kala qaadaan midna ogolaadaan midna diidaan man faraqa bayna asalaati wazakaa unuunkan ka guraya cumar dee xaqdoon buu ahaa qofka xaqdoonkii dee xaqa u qaataa aad iyo aad markay u caddaatay inuu ka haray xaq buu doonayey wadaadada maanta waxayna yidhaahdeen maxaa ku laynaysaan maamulada jira waxaanu ku nidhi salaadda waa waajib in la tukadaa waajib sharciya weeye in diinta islaamka laysku xukumaana waa waajib sharciya labadaa waajib ninka kala qaada siduu abubakar murtadiintii hore ayaanu u laynaynaa abubakar baana noogu sheekha iyaga ugu weynoo daba socnaana waa nebi maxamed warku soo ma urursanaa waa urursanya ma garatay marka meeshaas waxaa ka cad abubakar wuxuu dadka ku haystay nacam waa rugni kale u ahaa sakaday diideen baa lagu haystay innaguna laakiin way shahaadanayeen waanay tukanayeen unuunkaanu ka guray unuunkuu ka guray madaxuu ka guray innaguna maanta waxaynu ku laynaynaa salaad bay tukan waayeen maaha masaajidda waynu ku araragnaa laakiin waxaynu ku haysannaa xukunka yaa leh allaha weyne waaxidkaabaa leh waa cibaado cid kalena lama siin karo united nationka iyo beesha caalamka iyo egad union midna lagama qaadan karo rabbulkawni walkaa'inaad baa laga qaadanaya alaa lahu alkhalqu waalamru ilaahay baa yidhi oday uunka iyo arrinka anaa leh waa min rubuubiyatihi siduu wax u abuuray ayuu u talinaya u arriminaya waxaa ka mid a marka waxyaabaha isaga eegeen dadku ku qatalmo in lagu sirmo ninkii xaqdoon ahna marka wuu joogsan ninkii dee naar loo wadaana kuwaasuu u doodi anigoo macnii dadku say ugu qatalan yihiin tilmaamaya ama se aan ka yaabay baan awrkii dhaliya xun geela waa laga dhufaana aad iyo aad ama dhoobadiiyo sayladda ayaad gacanta dhiibtaa dee waad iibisaa ama xiniyahaad ka saartaa ha yeeshee basaas kula dhashaan cidina dhaadayn ninkii waa ina hebel waa reer hebel waa kula diir waa kula af aad iyo aad ijiinka saaranna ee ramta ka dhaxaya sida moodharkana waa maraykan aad iyo aad ama waa yuhuud ma garat in lagu qatalmana way isaga eegeen aad iyo aad waxyaabaha isaga eegeen waxaa ka mid ah dawarsiga shisheeya ilaa kii ugu horreeyey ilaa ka caawa haysta daasad bay saa ula wareegayaan oo gaaladay gacanta u horsanayaan raggii ka hadlay dawarsigaa shisheeyaha nimankaa raggii ku dhaliilay waxaa ka mid ahaa tima cadde marka aanad lahayn looma lulamaanka weliga magaabada hashaadaa ka roon maydhanaan kale midigtaadu waxay xoogsataa maydho gaajada wuxuu wadaba manfacaan la cunin baa jiroo mawdka kuu sida waxaad ku dhiman leyd weye maraykan iyo waa kay baxshaan madaxda naato reer galbeed waxaa ka mid a xaajaada nafqallooc wuxuu yidhi icaanadu xornimaday u tahay eebadii malag icaanadu xornimada ayay u tahay eebadii malag kaalmada in lagu kaalmeeyo waa xornimadaada halis ku tahay xornimadaada icaanadu xornimaday u tahay eebadii malag albaabku gumaystuu ku xada umamka weeyaan waa halku ka soo gala buu yidhi dayn baa lagu siinayaa ma maqashay waxa weeye cimrigaa in lagu addoonsado oo khayraadka dalkaaga waxa weeyaan loo qaato gashigii lagu geliyey ayaa la doonaya waxaa ka mid a waxyaabaha isaga eegeen waxtar la'aanta iyo ballanqaadka beenta ah aad iyo aad waxaad arkaysaa mid dabadhilifa kuwa siyaasiyiinta ka mid a ama dee cimrigoodba sida alabka u ah 2000 iyo intaa markaynu gaadha 2040
runji baan idin wada marinayaa dhammaan waa wada casaanaysaan laamiyada doog isu bedelaya wax saboola la arki maayo ninkii la odhan jiray aadan carab ayaa maamuladan waxtardaradooda ayuu ka yaabay wuxuu yidhi sidii baan markaafiyow sitaa ama maraykaan sidii baan martida caana geel ugu macsuumaa sidii baan midhaa uga gurtaa madaxii toomood bal muxuu macneeyoy taray ministerkan doorta horta ninkan siyaasiga muxuu igu soo kordhiyey bal muxuu macneeyey oo i taray ministerkan doorta ma mucaarad baanay haddaan xaqa ku maansooday buu tima cadde ayaa isna gabay qurux badan ka tiriyey waxtardaradooda wuxuu yidhi ridha shaaba la yskaga daraa rubuca jiilaale ma riwaayad ba calanku sow ruuxna kuma naaxo calankan aan qof soomaaliya oo ku naaxay ma maqasheen lamana maqan lamana arag qof soomaaliya ay dhiigga ka fuuqsadeen oo tafeenna yaraaday mooyaane qofay waxu tareen cajiib ma jiro halgankii lala galay gumaystihii waddanka ku soo duulay horaan iyo haddaba dadku isdhex qaadeen dad badan oo waxaa jira lagu tilmaama halgamayaal maanta la taagan yahay sidaas oo kale dad badan baa halgankan soo bilowday ilaa hadda waa laisla wada sheegtaa halganka yuu dhab ka ahaa yuuse dhalanteed ka ahaa wuxuu dhab ka ahaa nin kastoo diinta islaamka kor u qaadaya amase diinta islaamka u dirirayey waxaa raggaa ka mid ahaa axmed guray sayid maxamed cabdilla xasan sheekh bashiir xasan barsane ururkii alitixaad alislaami almaxaakim alislaamiya inkastoo midhahooda la xaday wixii ilaahay ka cayntiyey mooyaane al-shabaab wuxuu dheeldheel ka ahaa oo u dhabdarro ka ahaa nimankii la odhan jiray syl niman gumaystuu samaystay dadkana uu ka gedayey uu u tusayey inay yihiin xaqudirar si hadhow maamulada dabadhilifkee ay samayn doonaan ay xubno uga noqdaan sidoo kale ereyga jihaad waxaa ku maxaabsaday ururo badanoo waxa weeyaan qabiilu dirar ah iyo kuwo kuraas raadinaya soomaalidu waxaa la yidhaahdaa waa dad aanan marna isdhiibin intii uu halganka socday oo mar waliba hadday qolo isdhiibto qolo ayaa taagneyd oo mar waliba halganka qaa'im ayuu ahaa arrintaas sirta ku jirta ma la ogaaday ee waxa u sababka ah waxaan is leeyahay faysalow waxyaabaha sababaya amase mar walba dabada ka riixaya in ummadda muslimka ee soomaaliyeed laga helo hadba urur dagaalamaya ama waxaweye rag gaalada ka horjeeda waxaan is leeyahay howlgeliyaha ugu weynee dabada ka riixaya ee uguna horeeya uguna culusi waa inay muslimiin yihiin aad iyo aad waayo muslimku meelu joogaba dee qayuurku kama dhammaado aad iyo aad taade xadiiskii ku haysa laa tazaalu daa'ifatun min ummati daahiriina cala alxaq waxaa weeye rag dirira laga waayi maayo ninkii la odhan jiray saahid qamaan ee gabyaaga ahaa wuxuu yidhi nin dharkayn mudmuday hoosna maray muruxin shaalleeye muslim kuma cabiidsamo walloon madaxa kaa goynabu cajiib muslimku waxaa weeyaan lama sandullayn karo aad iyo aad ama qayuurku kama dhammaado taas waxaan is leeyahay waa hawlgeliyaa ugu weynee dabada ka riixayeen inaan laga waayin dad dirira diintoodana ballanqaaday haysataa diinteena ballanqaad baynu ku haysanaa aad iyo aad liyudhirahu cala diini kullihi waxa kale oon is leeyahay oo iyaduna meesha ku jirta waxaynu leenahay sooyaal jihaadiya oo dheer aad iyo aad axmed gure ka soo bilow sayid maxamed cabdilla xasan ku xigsiye xasan barsane sheekh bashiir dee miyaan kuu tirin karaya raggii raggaha rag baanay sooyaal jihaadiya oo dheer leh ma garata marka suuragal ma ahan in halgankaas qorigiisa la dhigo in qorigiisa la dhigo ina la qabsadana suuragal maaha jiilba jiil buu u dhiibaa facba buu u tabinaya ayuu warka u tabinaya taasna waa sir kale qorigana u dhiibaya ma garatay taasna waa sir kale sirta saddexaad waxaan is leeyahay dad bay ahaayeen dad hodana oo hooda gaalada iyo
ka maarma waxooda sumaysan ka maarma sidaad og tahay dagaalada gaaladu inagula jirta waxaa ka mid ah dhaqaale curyaaminta berigii gaalka ingiriis geela xareeyey ee uu doonaya inuu xeryaa ku le'da geelu wuxuu uga jeeday geelu muureeyey miya haa xilligii nacam waa garta waa dhacday waa dhacday geelu xeryaa ku shubay muddo xaraysnaa muddo waxa weeyaan dhaqaala tir ama dhaqaale curyaamin ayuu uga jeeday wuxuu la dagaalamayaa marka qofka iktifaa hadduu gaaro nacam lama gumaysan karo raggii ka hadlay ismaaciil miraa ka mid ahaa wuxuu yidhi markabay dalkii waxaa bannaan inaana doonayn markaan diriri jiray adigii damalka weyna muslinka daacad dhiibtaa ku baday maanta duluglayse diqda qaayib awrtana la daaq deeqallaad sugayabu mar kaluu ku noqday waa kii lahaa adigoon holeen ka herqawaaceeba waaniga hawaarsaday sida habaryartay dhoole hadhuubka iga qaad faarax uyaan huqdii u dhiman ragga ka hadlay waxaa ka mid ahaa gamuute wuxuu ihi gubniyaal sarkaaliya hadduu goondharku u fuulay waa kaa ka soo gudhay halkay goray ku sheellayde godbar daalay iyo maalintay gaaba ololaysay hadba waxaan geliyoonayaa gadhadhacadeedii markaa raggaasi waxay arkayeen inuu gaalku dhaqaala curyaamin dhaqaala tir inuu wado nooc dagaalka ka midana ah nacam ilaa haddana socoto haa markaa waxaan is leeyahay qodobka saddexaad weeye waana qodob maanta aad laynogala dagaalamayo dagaal hibrigaa soo bilowday ama ka hor soo jiray ilaa haddana wuu socdaa saddexda sir ee istimraariyadiisa ka qayb qaadanaysana intaas ayaa ka mid ah nacam aad iyo aad waa ku fahmay jazaaka allahu khayran haddii aan sii raacsado su-aal kale tallaabooyin waxaa jira aanan isbedelin oo mar walba gumaystaha uu adeegsan jiray horaan iyo hadda isku ekaansho ma jiraa oo meel ay isaga egyihiin kuwa maantana goobjoog baad u tahay kuwii horena suugaanta baad ka akhrisay waxay isaga egyihiin ma jiraan tallaabooyinka aanan marna isbedelin ee mar waliba uu adeegsado gumaystaha horaan iyo hadda intaba waxaa ka mid a faysalow tallaabooyinka de way badan yihiin tallaabooyinka ay diinta kula dagaalamaan gaaladu hadda iyo horaanba laakiin waxyaabaha mar walba muuqda ee ay aad u adeegsadaan waxaa ka mid ah wadaad xumaha midkii horena ma waxay ka ahayeen aalad culus may ka ahayeen nacam nimankaas siday wadaad xumuhu siday gaalada ugu diran yihiin in cabdilla xasan oo ka yaabay wuxuu yidhi culimmada sidii baaniyaal beledka gaal joogta baabkii allaa laga akhriyay inay baloobeene inay belelka naareed ku dhici ba'a iyow sheegabu war in cadaab dambeeyo oo waxa weye murankan iyo indhacadayntaa diinta laga been sheegaya laysla dhaafayo oo barri iyo qiyaamo iyo qaawanaani dambayso war nimanka yaa u sheega mar kale wuu ku noqday sayid maxamed wuxuu yidhi culimmada habowgaa sidii hatufuga jeesta sharcigay ha sahayaane ya idin habowsiinin shayddaanka soo wada humbucan nadi ku haylhayla buu jeedlaya nacam oday dalaayad la odhan jiray ayaa wadaad qaadiriye oo intuu garaabo ka dhargay sidii ri weyn labadaa uuska ka tufaya oo waran ridaalaysanaya ayuu yidhi war maxaa haya kan waa weli baa la yidhi wuxuu yidhi culimmada wanaagsani sidaa uma wareeraan nin marqaansan wilaayada la siiyey khalqiga wax uga sheegaan garaabada hadduu waa la cuno sidii ri waayeela ama uu wajaaf qaato u waran ridaalaysto waxay lama tusina waa iblis walaalacdiisiiba shayddaan baa istusay waxay shaydaan waa yidhi waxaa ka mid a wadaad xumaha raggii ka hadlay ninka la yidhaahdo xaaji aadan wuxuu yidhi culimmadii asluub leh ayuu khalqiga ku intifaaca dar kaloo isu ekaynayaa dilay akhlaaqdii buu waxaa ka mid a siyaasigii dacaada qaataha aynu sugaantii laga yidhi iyo wax badanoo laga yidhi aynu soo aragnay aad iyo aad madax dhaqameedkaa ka mid a dee waxaa ka mid a cududda iyo ciidanka cududda iyo ciidankaa ka mid a nacam waxaa ka mid a maalka iyo xoolaha inuu kugu qarqiyo nacam sayid maxamed oo arrintaa ka hadlaya in wixiisa la qaatana ka digaya dadka uga digayaa yidhi dawo lagama helo gaal haddaad daawo dhigataan waa idin dagayaa kufriga aad u dabcaysaan dirhamku idin quba hayaa dib u go'aysaan buur shilinkan waa eedi doontaan aad goranaysaan cajiib maxaad kula talinaysaa dabar idhifka maanta gaaladu ku adeeganayso oo aad ku waanin lahayd soomaalidu waxay ku mahmahdaa daayarow qaraab ka warran
tunkayga iyo tagoogayga ka eeg buu yidhi ha waxaan leeyahay dabadhilifnimo waxay gashiya waxay guddo waa haystaan waxaa kaloo haysaan sida fagaaraha dagaalka ugu go'deen idinkoo rag waaweyna ayaa niman siyaasiyiini oo carruurtoodii dabadda wada geystay reerahooda idinku biishanayaan oo maalin walba hooyooyinkiin iyo aabbayaashiin gobollameynayaanay kaga ohinayaan aad iyo aad idinkuna waa iska garan la'diin waa nin saddexanyahaagoo kale leh ayaa kugu guuray xasan gurguurta inaanu waxba gelin waad ogte adiguna adoo qori xun sitaa ayaad mujaahidiinta hor imanaysaa waxaan idin leeyahay nin ka mid ahaa ciidamadii ingiriisku qortay ee soomaalida ahaa ee daraawiish lagula dagaalamay nin gabyaadeb ahaa waxaa loodhan jiray qaajabalas haye qaajabalas wuxuu tiriyey geeraar toobadkeena waa oo gartay aad u qurux badan maalin laysma hoobiyey baa raggiisii go'ay ha isna dirqibuu ku baxsaday ilaahay baa bixiyey inaanu safkii gaalada ku dhimanin ayuu ilaahay ugu mahadnaqaya waxaa kaluu raacinayaa beentii loo akhriyey ee lagu dagaalgeliyey taasoo uu leeyahay nimanku waa shanshan bay meelaha u joogaan kaali qoryaha ka qaata ayuunbay u baahan yihiin waa kalluun biyii ka gureen haye u fiirso sidii lagu haa dagaalgeliyay nin walba reer ha iyo raysimo ha iyo geel badan baad ayaad soo hitiqin doontaa ka soo qaad qaata haa fardahooduna farda wax gala maayo waa farda ruqaa dabkoodu dab maaha xataa diintay ka been sheegayaanoo ilaahay lama jiro sidana maanta agsan hadalku waa hadalkii oo argagixiso haa waa hadalku waa hadalkii diintay ka been sheegaya wuxuu yidhi marka wuxuu yidhi qaaja balas raxanraadkii hawsha kama raalli ahayn rag baas baa ilo gooyey waxba yaan ramadkiisa iyo raraygiisa kaxayne mar haddaan rubadayda reerihii nabadgeeyey naftayda buu haddaanba soo mar haddaan rubadayda reerihii nabadgeeyey rabbi waa mahaddi ha hindigaa ridi doona beesha caalamka inay la socotaa lagu yidhi hindigaa ridi doona iglan baa rujin doonta ruqa weeye farduu ninba reer ha kaxaysto rabbigay talin maayo xataa ilaahay lama jiraa lagu yidhi soo wixiina hor rooray ee raggii ay qoranaysiyo rogay gaalada maaha buu yidhi marka waxaan leeyahay sidaa ninkaasi isu garta oo anshaxumada faraha kula jirtaan ka baxa aad iyo aad haddaa ka bixi weydaan waa halkaannu idinka miisi jirray iyo meel ka sii kulul weeye waa inaa mataqaana u diyaar garoodaan marka mataqaana xukunka ilaahay in lidinku fuliyo nacam aad iyo aad abwan waxaan soo gaarnay guntii iyo gabagabadii hal su'aal ayaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo waxaad sheegtay in la xado inta badan miraha halganada si gaara waxaad farta ku fiiqday itixaad iyo maxaakiimtii in halgankoodii la xaday sidee horta marka hore loo xadaa yaa xado maxaase arrintaas ka tiri walaal way jirtay ururkii al-itixaad alislaami iyo almaxaakim alislaamiya labadaba midhahoodii waa la xaday gaalaa xaday weji culamaana lagu xaday culimaa laysugu toosiyey wax dee qarsoonba maahaa itixaadka dee raggii ugu waaweynaa ama haystay iyagoo maamulada dabadhilifkaa iska gadaya qunyar socodnimadoodana tusaya ayay dee ugu baaneenba inay kumanaan mujaahidiin kala direen iyagoo maslaxadda maamul hebel ilaalinaya waxaa dee ka mida iyagaaba dee fagaarayaasha la taagan oo inay ceeb galeen baabay arkaan waa ka toobad keennay ayay meel walba ayay la taagan yihiin jihaadka inay kala direen ku faanay nacam taasay ahayd marka loo yimaado almaxaakim alislaamiya isagana weji culimo ayaa lagu xaday ninka la yidhaahdo shariif oo gaaladu si kale u dhigtay siduu ahaan jiray berigii hore si ka duwan loo dhigay ninka iyo wadaadadii fatwada ku taageeray ee yidhi waa khawaarij ciddii maamulkiisa la dagaalantaa isagana wejigaasaa lagu xaday waxaynu wada ogeyn wadaadadii fatwada ku taageeray waxaa lagu yidhi shariif waa ninka keliya ee laba dowladood wada maamulay midna islaamtay midna gaaltay dowlad muslina oo almaxaakim alislaamiya iyo dowladda federaalka soomaaliya ayuu wada maamulay shariif miyadaan arkayn baa lagu yidhi shariif in dowladdii islaamiga ayad hore laga dumiyey tu dabadhilfana loo dhisay oo gaaladu raalli ka tahay way garaysan waayeen wadaadadii soomaalida waxay tahay dee kal xingala xigmadi ma gasho qorag iska dhicis warag iska dhicis waxaa lagu yidhi shariif miyaydaan arkayn
akfar baarlamaan ayuu samaysay baarlamaankii ugu gaalsanaa Soomaaliya mid soo mara baarlamaanka xorta waxa la oran jirayoo diinta islaamka waxay dhahaan fartay u taageen ba loo codeeyo diintay cod geliyeenba bal doo fiirso diinta islaamka yidhaah waynu codeynayna akfar baarlamaan buu kii aadan cadde isagu sacad buu u diiday laakiin nimankani waxay yidhaahdeen waanu ogolaanay hadda cod baa la geliyaan ku yidhi war miidaan arkayn baa la yidhi shariif wuxuu cabdilaahi shalay kula dagaalamaya xabashidii la socotay inuu diintii gaalada iyo dastuur wax ku xukumaya kibuu shariif ku xukumaya gaaladii cabdilaahi ku haystay oo ka sii badan buu haystaa warnimaya wadaaddow maxaa isu yeelyeelaysaa loo taagi waa markii loo taagi waa baa layidhi daayaroo adiya dabadaada laysu kaadaa mujaahidiinta bariga afrikana go'aankoodii ragannimada lahaa ayay qaateen maamulkaa dabadhilifka ah ee diin la dirarka ah kaga aadanaa maxaa ka tiri marka adiga anigu berigaa waxaan ka tiriyey gabay laydhaa dabadhilif haddaan gabaygu waa deeq rabbiye daayin ku dhalinin oo aana doobkaaciyoon daafta marinaynin waxba lama ducdee bahalka waa la yska daayaaye adigoon dantaadii keliya diinta ka habsaamin hibadaada inaad daydaydaa igala dooroone dadku wuxuu kibraa maalintuu darajo yeeshaaye dibiraduna waxay dhaafisaa talada doorkaaye ninna diilalyada qooq maliya duraha jilaale doogaadda iyo arankay wada darjiidhaaye durduradana qaar baa ku jabaadayina bidkoode mahmah da'weyn baan halkaa kuugu darayaaye dardar farasinu qayibaa waa habeen dumaye doodiga marunbuu gabaamase daalaaye ilaahay dagaalala galiya diintu yay soconnin ninkii ruushku daadihinaya dilinta casaystay waa wuxuu damiinkii ku lumay dawdarka ahaaye gaaladu nin duuflaala way diran yaqaanaane dadkay ku dhaafaan waxay duufsan karayaane sida doxorka inayeyna waa lagu danaystaaye anigoon dekanadeenna iyo daynkii tirinaynin halkan inaan ku soo wada darana daabadda u fuulin maantana middaba qodhiyaan kaaga digayaaye dadku wada gob weeyaan intuu buuxa doobigoye diraacdu khalqiga soo baxa kii dunta ahaaye haddii aan duruufaa ad adag dunida gudoolin ninka duufka bawdada marsada lama dareemeene alla doori waa ka shariif dilay hankiisii duhur buu iskawracay ninkii duubka loo xidhaye mahiigu ku doorsaday allii dayinka ahaaye waxba yaanu noo laba dublayn gaal la soo diraye waxba yuu dabbaal joogta madhan nagula daanshoone dibi rooti buu kula sugaa daallin weligii yaxaaskuna ilmuu daadiya xeeli daba taale dalbantuuqa lama sheeli karo daayina bidkoode inkastoo la dada meel fog baa laga dareemaaye nin hadduu dacwiya waa inuu dulucda taabtaaye dabagelisku culimuu baxay diinta hayn jiraye inta aanu duufaanka iyo daadku kula boodin diintiiyo shareecada allah laga dabqaataaye
anuu taa ka duulayaan idin dareensiiyey daba dhilifka abidkayba waan diidanaan jiraye ninkii kaa ku sii daalayow daa'imaa tahaye daralaanu nacay khaayinka diinta iibsadaye dar allaan u nacay khaa'inka diinta iibsaday waa tahay aad buu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa abwaan cabdiwaaxid cali gamaadiid oo maanta marti ku ahaa barnaamijka andalus podcast akhyaartana dhegeysanaysay intaas ayaan maanta xalqadeena kusoo gabagabeynaynaa kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن